kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ku soo dhawaada barnaamijka faafareeb oo aan kaga hadli doono qodobo muhiim ah. barnaamijkan oo aan inta badan ku fiirino dhacdooyinkii iyo howlihii ugu dambeeyay ee social media iyo wararka la isla dhaxmarayo YouTube-ka, Facebook-ka iyo Instagram-ka. qodobkan waxaan ku soo qaadan doonaa aroos la sheegay in fanaanka caanka ah Dayax Dalmuushe si qarsoodi ah oo ugu qabsaday magaalada Muqdisho ayadoo la sheegayo inuu guursaday gabar caanka ah social media oo la yiraahdo Ayuni. gabadhan oo TikTok-ga qaasatan TikTok-ga aad caan uga ah ayaa la leeyahay waxaa dhacay aroos si qarsoodi ah u dhacay. arrintan oo aysan jirin ilo wareedyo xaqiijin kara oo si dhab ah u xaqiijin kara ayaa waxaa haddana beeniyey oo page-kiisa Facebook-ga iyo Instagram-ka soo dhigay war uu ku beeniyay Dayax Dalmuushe. qoraalkan uu Dayax Dalmuushe soo dhigay page-kiisa Facebook-ga ayaa u qoran sida tan: assalaamu calaykum dhammaan, waad waalateen weliba xadka ayaad wada dhaafteen dhammaan dadka beenaalayaasha ah. farxiya ma aha xaaskayga keliya ee waa caruurtayda hooyadood. intaasna ma ahe waa saaxiibtay, waa taladayda, waa noloshayda, waa farxadayda, waa go-aankayga koowaad. cidna si gaara uma ataagayo, balse faraha kala baxa arrimaha aniga iyo xaaskayga. dadka waaweyn ee YouTube-yada kusoo qoraya farxiya Dayax baa kala tegay ama gabar kale ayuu la guursaday waxba uma dhimayaan gabadha islaameed. ayadana faraha ka qaada, beentana ka daaya fadlan. intaas kadib wuxuu leeyahay intaas kadib ma aqaano wax kale oo idinku tilmaamo. qoraalkan oo Facebook-ga iyo page-kiisa Instagram-ka soo dhigay ayuu Dayax si kulul ugu beeniyay hadallada dadka isla dhaxmarayaan. wararkan oo ay qoreen inta badan ama aan dhahay wararkan oo ay baahiyeen janaalo badan oo YouTube ah ayaa aan waxba cadeena u sameynin, ayadoo ay iska soo qaateen waxay soo eg tahay in ay ku raadinayeen views, walow ay jiraan hadallo hoose oo dadku isla dhaxmarayaan oo ah possibility-ga ama suuragalnimada in arrintan wax ka jiraan. laakiin marka aad si dhab ugu eegto hadalka Dayax Dalmuushe iyo cadeen la'aanta page-kan soo dhigay wararkani waxay u eg tahay inay tahay arrintan arrin been ah oo la dhoodhoobay.